واجك madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Owaare oo ku sugan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe oo waraysi siiyay telefishinka Universal waxa uu sheegay in la siyaasadeeyay kunka askari ee ka socda howlgalka AMISOM ee dhawaan ka baxaya deegaanada maamulkaasi Hirshabelle waraysi dhinacyo badan oo uu siiyay TV-ga Universal ayaa waxa waraysiga inoo qaadaya wariyahayga gobolka Shabeellada Dhexe Ibrahim Ali Nuur oo ugu horeyn weydiiyay madaxweynaha Hirshabelle arinta la xiriirta bixitaanka ciidamada AMISOM ee deegaanada Hirshabelle oo kun askari laga saarayo wuxuu ku jawaabay badan waare horta hadii taariikh yar aan dul maro go'aankan waxa jira qaraar qaramada midoobay ay soo saareen tiradiisu ay tahay 2431 oo faraayay oo lagu cusboonaysiinayay mandate-ka ama howlgalka AMISOM wadanka waxa ku jirtay marka farqad ama clause xadidayo in kun askari laga saaro bisha Febraayo 2019 wadanka Soomaaliya sabab fara badan oo runtii aanan halkan hadda inaan ku galo aysan munaasib ahayn waxa la gaaray go'aan ah in kunkii askari laga saaro hal sector 5 ama Hirshabelle go'aankaas runtii waxa lagu gaaray ayadoonan mataqaana tala fara badan aan annaga laga gelin ama dawladda laga gelin golaha amniga iyo siyaasadda ee AU-da oo u taliya maamulka AMISOM waxay runtii ku fiicneed ama caadada ahaa jirta ama annaga doorbidaynay in kunkaas askari laga qaadi doono sector-hada oo dhan oo annaga markaas 5 sector haday yihiin Hirshabelle 200 askari ay ku soo aadi doonto lana maareyn karo laakiin go'aan waxa la gaaray in kun askari oo ciidamada Burundi laga qaado arrimo siyaasadeed kulay dabcan la xiriirta culayskaas horta annaga ayaan walwal ka muujinay sidaasayna taariikhdiisu ay ahayd hadda waxaan isku daynay inaan go'aankaas bal tala ku yeelano inaan dawladda anagoo la kaashanayna in arintaas xooga culayska zaa'idka oo Hirshabelle inay zaa'id ku tahay inaan muujino arintii waxaad moodaa inuu yahay go'aan la gaaray oo AU-da iyo AMISOM ay gaareen runtiina waxa isbedelaho lagu sameeynayo aysan jirin hadda marka annaga alxamdulillah rabbil caalamiin sideedamane wadankan amnigiisa iyo xoreyntiisa iyo horumarintiisa Soomaalida laga rabaa arintaanuna waxay u tahay hurda ka toos in AMISOM maalin maalmaha kamida inay bixi doonaan sidaas daraadeed xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha wasaaradda gaashaandhigga xafiiska taliyaha ee ciidanka xafiiska amniga qaranka iyo Hirshabelle waxaan hadda aad aan mataqaana anaga shaqeynayna sidii saameynta arintaas ay ku yeelan lahayd amniga Hirshabelle loo yareyn lahaa ama looga hortagi lahaa waliba aan mataqaana dib kasta fursada ku dhex jirta fursadaas aan uga faa'iideysano inaan dardar gelino inaan ciidamadii qalabka siday la xoojiyo lagu baraarugo la arko in baahida ugu dambaysa ay tahay inaan anagu isku tashano ciidamada aad sheegtay ee dalka in la baraarujiyo u baahan ma buuxin karaan goobaha ay banayaan AMISOM ciidamada Soomaaliduna waa ogtahay adduunkuna waa ogyahay ciidamada ugu fiican adduunka anaga iska leh hadii la taakuleeyo hadii tababar fiican la siiyo hadii hoggaan fiican loo sameeyo hadii wixii ciidan u baahnaa loo dhameystiro taas annaga shaki nooga ma jiro kaliya maadaama wadanka hadda uu soo kabanayo ciidamadiina ay soo kabanayaan waxaana looga baahan yahay inaan dardar cusub gelino tusno wadankan cid noo xoreynaysa ama cid amnigeena noo haynaysa inaysan jirin aan u soo jeesano sidii ciidamadeena aan u qalabayn lahayn ugu dambeyn 2021 AMISOM dhamaanteed ka bixi doonaan wadanka dhan ka bixi doonaan waana muuqata hadda in marmarka qaarkood la gaarayo awal waxa ku qornay transitional plan ama habka kala guurka inuu noqdo wax waaqiciga ku salaysan oo realistic inuu yahay waxa ku qorneed in comprehensive oo noqdo
oo militariga kaliya aan la fiirinin la fiiriyo muxuu ahay dhismaha maamulka xoojinta muxuu ahay deegaanada dib u heshiisiinta arrimahaas oo dhan ku jiray barnaamijka kala guurka hadda waa muuqataa in la gaarayo go'aamo ayadoo marmarka qaarkood waxaas aan diyaar loo ahayn sidaas daraadeed annaga Soomaali haddaan nahay waa inaan ku baraarugnaa ciidamadeena ciidan ahayn oo wadanka noo xoreynaysa ama noo haynaysa inaysan jirin dhanka dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar marar badan waa la shaaciyay in dhawaan ay bilaabanayaan waliba dhowr bilaad la cayimay bil hebel dhismaha bilaabana la yiri maysan dhicin marka maxay tahay caqabadaha mar waliba dib u dhigay dhismaha wadada Muqdisho iyo Jowhar horta mashruucaas waa mashruuc aad muhiim u ah Soomaaliyana muhiim u ah Hirshabeellana muhiim u ah gaar ahaan caasimadda Muqdisho iyo dhaqaalaha deegaankana muhiim u ah runtii mashruucaas baaxadda uu leeyahay ma aha mashruuc fudud in hore laga fuliyo runtii muxuu ahay waa mashruuc tartankiisa lagu galay heer caalami oo international mataqaana bidding lagu galay waqti ayay qaadatay in la isla helo wixii arrimo farsamaha shirkadkii tartankii deeq bixiyaashii shirkadihii fulinayay shirkadihii Soomaalida oo la shaqeynayay yani waxa soo dham waqti qaadanayaan waxaan rabaa inaan kula qaybsado in hadda annaguna runtii waxaan diidanayn dawladuna ay diidaneed annaguna aan diidanayn in muxuu ahay mashruuc baaxadaas leh rajada intaas la egna dadku ka qabaan in intii la dhagax dhigo haddana waqti muxuu ahay la iska sugo dadkii ay niyad jabaan waxaan rabaa inaan kula qaybsado ummadda Hirshabeelle iyo ummadda Soomaaliyeedna aan la qaybsado in hadda arrimahaas farsamo dhamo ay dhamaadeen oo wax hadda haray oo mashruuc in la bilaabo aan hayno inaysan jirin mar dhowna insha Allah taala madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ayaa noo dhagax dhigi doona annaguna diyaaraan u nahay waan u diyaar garoobeynaa aadaan ugu faraxsanahay in rajadii aan qabnay inuu mashruucaas hirgalo ay mar dhow insha Allah taala ay mir dhali doonto dhowr jeer saan oo kale waa loo sheegay in dhawaan ay bilaabanayso marka tii hore maxay kaga duwan tahay hadda waxay kaga duwan tahay horta mashruucan lagu mafulinayo lacag oo hadda Soomaaliya qasnadeeda ku jirta waxaadan adigu gacantaada aadan ku haysan mar walba maskiinaad u tahay marmarka qaarkood waxa dheeraada waqtiga wax la ballan qaado iyo waqtiga ay wax fulaan laakiin hadda alxamdulillah rabbil caalamiin commitmentigii deeqduna waa dhacday arrimihii farsamo la xiriiray mataqaana qadaraaskuna waa dhamaadeen waxaan rajo ka qabnaa runta waaye dhowr jeer dib ay u dhaceen arrimahaas farsamo waliba la xiriira mataqaana cilada yar yar oo dhinaca farsamada iyo xagga qandaraasida la xiriira waa jirtay laakiin hadda waxaan qabnaa kalsooni in arrimahaas la xaliyay ay dhamaadeen si degdegana loo bilaabi doono maalin kadib ama hal maalin kadib magaalada London caasimadda dalka Ingiriiska waxa la filayaa in uu ka dhaco shir markaasi aad muhiim u ah oo looga hadli doono kheyraadka dalka ama shidaalka ku jira Soomaaliya maadaama adiga aad hadda madaxweyne ah ka tahay deegaanada markaasi lagu tiriyo dalka Soomaaliya meesha uu shidaalka badan sidee u aragtaa shirkaas horta alxamdulillah rabbil caalamiin wadankan ilaahay wuxuu ku manaystay kheyraad fara badan oo xaq shidaal xaq macdan iyo kheyraad kale oo fara badan annagana waxana laga rabaa inaan talada isla helno muxuu ahay kheyraadkaas aan ka faa'iideysano sida aan isu helaynaa huna waa in la is aamino la tashado wax la isku og yahay iyo wax aan raali ka wadanahay iyo system aan degsano waxaad ogtahay inaan heshiis bay double aan ku saxiixnay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe in shidaalkii la soo saaro habkii loo qaybinayo waa la sheegay sida loo maamuli doono waa la sheegay sharcigii batroolka waa la diyaariyay oo mataqaana baarlamaanka uu horyaalaa runtii tallaabooyin dhaxalgal ah oo wanaagsan ayaa la qaaday sideedana batroolku muxuu ahay wax hal maalin ku soo baxa maaha ilaa iyo muxuu ahay intaanan anagu dhalan 58 ayaa wadankan muxuu ahay Sinclair iyo shirkadaha hadda magacoodana soo gaaray ay shidaalka baari jireen waxa marka loo baahan yahay tallaabooyinkaas la qaaday inaan soo dhaweyno hadda shirka London ka dhacayo
waxaa la soo gudbi doonaa oo lasoo bandhigi doonaa daatadii wadanka awal tuhunaa jiri jiray meel walba shidaalaa ku jira inta ku jira halkan waxa la dhihi jiray hadda in daatadiiyo habaysan la soo gudbiyo adduunkana la tuso annagana aan mataqaanaa dadkii aan la wadaagno kadib sharciyadii shirkadihii danaynayay system u baahan yahay Soomaalidu waxay tiraahdaa xagla geel mara hoostooda waxa geliyay waa ka weyn yihiin ayaantan waxaad arkaysaa in social media abaabul xoog la wado la leeyahay shidaalka la xaraashay shidaalka la qaatay shidaalka saan la yeelay yani shidaal saas fudeedkaas muxuu ahay lagu maqaada karo waxa jira by the way shirkadaha hadda koor waaweyn oo shirkadaha adduunyada u waaweyn oo blogyo fara badan oo wadanka u haystay muxuu ahay heshiisyo dagaalkii dirtiis uga hakaday declare gareey waxa la yiraahdo force majeure oo force majeure waxa waaye waxa ku yimid wax muxuu ahay yani wax ilaahay xaqiisa ka yimid oo dagaalkii ah waxa soo dhuma in la kala saaray u baahan yihiin ugu dambeeyntana muxuu ahay waxa salka insha Allah taala loo dhigi doonaa sharcigii muxuu ahay beeyada sharcigii batroolka sharcigii wax qaybsiga oo qaybtiisa ugu horeysay mataqaanaa heshiiskii dhacay laakiin al-aakhir u baahan doona in baarlamaanka la marsiiyo marka haddaan kuu soo koobo aadan mataqaanaa arrintaas aan ugu niyad fiicannahay in tuhun badan oo jiray oo run iyo been wuxuu ahaa aan la kala garanayn daatadeedii cilmiyeysan la soo gudbi doono dadka Soomaalidana waxa la rabaa inay inta isdijiyaan haddii la yiraahdo muxuu ahay meeshii farta loo qaadaba balaaya ka soo socota macdan lama qodi karo shidaal lama qodi karo muxuu ahay warshad lama dhisi karo wadankii la iibina hadda anagoo saan gaajo iyo faqri iyo dhibaato iyo dagaal iyo colaad ugu jirna ayaa generationka kalena aan ku gaari doonaa marka sax waaye in mataqaanaa xoogaa cilmiga iyo aqoonta iyo talada la isku biiriyo laakiin haddana in hore tilaab loo qaadaa waa muhiim marka arrintaas aniga shakhsiyan iyo hirshabeellahan waa soo dhaweynaynaa shirkaasna hadda qaybaan ka nahay macluumaadkaas waana soo gaari doonaan wixii mataqaanaa hirshabeelle daataa laga soo gudbiyana markaasaan sidii lagu heshiiyey iyo sidii sharcigu qabo aan uga faa'iideysan doonaa haddii aan eegno dhanka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe muddooyinkan dambe isqabsiga ka jira oo hataa dagaalo soo noqday oo dhanka mas'uuliyiinta ugu sareysa oo jiray hataa maanta ugu dambeysay oo dagaalo ka dhacay oo dadkii shacabkii loo kor dagaalamay bal maamulka maxaa kaga qorshaysan isqabsigaas iyo dagaaladaas iyo xabada soo noqonaya degmada Balcad horta frictionka oo muxuu ahay degmada Balcad wixii maamul ku eg ama maamul ku xadgudbay mataqaanaa mas'uuliyadiisii ama go'aano muxuu ahay loo baahneen qaatay ama hub adeegsaday ama maamulka ku aada muxuu ahay wax ka qabashadeeda waana ka qabanaynaa haddana baaritaan iyo guddiga ku mashquulsan wixii meesha ka dhacay waxay ahaayeen iyo cidii sababtu ahayd in la soo ogaado haddii arrintu maamul ay ku ekaato oo maamul qaldamay iyo maamul dhexdiisa iska qabsada haddii ku ekaato wixii aan ka qaban lahayn waa noo caddahay laakiin haddii mataqaanaa siyaasado kale waaweyn iyo arrimo qabiil iyo xamar xoogaa laga soo shidaay iyo haddii arrintu ay xoogaa ay lagu hala gasho waxay u baahnaanaysaa marka fadhi weyn oo dhinac dib u heshiisiin leh oo dhinac iswarsi leh oo dadka deegaanka meesha degan muxuu ahay ii sheeg waxa la yiri ciyaalku waxay ku hadaaqaan waxa waalidku ku hadlo wax badan oo dhibaho meeshaas ka jira rag waaweyn oo siyaasiyiin geed fadho ah oo mataqaanaa aan tuhun ka qabnaa arrintaas baaritaankaas ay ka soo bixi doontaa siday tahaanan kula tacaamulayna laakiin ma aqbali karno mana yeeli karno mana yeelayno in ayadoo maamulkii la adeegsanayo in mataqaanaa wax dagaal u eg magaaladii laga abaabulo mana suurtoobayso dhinaca baarlamaanka haddaan fiirino muddooyinka dambe buuqaa jiray baarlamaanka oo ku saabsan xag dhaqaale oo ay dhanka xukuumadda markaasi ku eedeynayeen dhinaca baarlamaanka bal ka war arrintaas maxaa ku jawaabaysaa horta wax badan oo buuq ah oo arkaysiin waxaad moodaa wixii maqaayadaha iyo fadhi ku dirirka in hadda Facebook iyo social media loo wareejiyay anaga hirshabeelle alxamdulillahi rabbil caalamiin wax dhiba ma qabno waxaasad arkaysiin oo buuqaayo waxaan 5 qofood 6 qofood ka badnayn ayaa wado baarlamaanka hirshabeelle waa baarlamaanka kaliya oo muxuu ahay koonfurta hadda Puntland oo 20 sano jirta marka laga reebo mushaar joogta qaata mushaar joogta
oo bil walba ayay qaataan waliba baarlamaanada muxuu ahay mushaaraadka ugu fiican ay qaataan Soomaa bilna ma aysan weynin wax dhaqaale darra oo baarlamaanka haysta ma jiro baarlamaanka buuqa aad arkaysiin waa wax la provocareynaayo oo social media oo lagu dhibaayo hore in loo socdo taasna dastuurka Hirshabeelle iyo xeer hoosaadka ayaa ku filan sideedana hal shay waa inaad ogaataa annaga haddaan nahay hogaankii laba arrimood u baan noo furan inaan muxuu ahay aqbalno in wixii la doono laga sheego run iyo been wixii doonaan ha aadaan oo qofku xuriyatul qowl uu leeyahay iyo inaan muxuu ahay qofkii madaxa kor u qaadaba aan madaxa ku dhufano annaga waxaan door bidnay qofkii qaylina ha qayliyo qofkii wax naga sheega ha naga sheego qofkii nacayna ha nacaayo runta waxay ka soo bixi doontaa nolosha dadka horumarka dadka mashaariicda dadka 5 qofood 6 qofood oo baarlamaanka dhax walaaqayana cidna runtii muxuu ahay ma filanayso in baarlamaanka Hirshabeelle oo dhan ay muxaafid wanaagsan iyo dadwada wanaagsan ay yihiin laakiin sida buuqa loo abuurayo ama social media saas dhibkaas uma jiro